kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida waa 29 bisha 11 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay kulan Nairobi ku dhexmaray Axmed Madoobe iyo waliba Cabdinaasir Sayraar faahfaahin ku saabsan ciidamada Itoobiya ee gaaray magaalada Dhuusamareeb loolanka Kenya iyo Ethiopia iyo qorshaha Kenya ee kulankii ka dhacay magaalada Nairobi dowladda federaalka oo hoteelada magaalada Muqdisho ka ururinaysa xildhibaanada loo wada Galmudug iyo igad oo dooratay hoggaan cusub Soomaaliya Kenya iyo Djibouti oo laga dhex bixiyay intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan aynu ku bilownay wararka naga soo gaaraya magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa waxa ay sheegayaan in xalay halkaas ay kulan xasaasi ay ku yeesheen madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo Cabdinaasir Sayraar oo kamid ah xubnaha mucaaradka Axmed Madoobe kana soo horjeeda dib u doorashadiisii wararka hordhaca oo kulankaasi laga helay waxa ay sheegayaan in xal laga gaaray khilaafka Axmed Madoobe iyo Cabdinaasir Sayraar ee ka dhashay doorashadii iyadoo dhexdhexaadin labada mas'uul ay karwadeen ka yihiin mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya Cabdinaasir Sayraar maaxaya xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo ka tirsan golaha shacabka oo labadaba ka soo horjeeda Axmed Madoobe ayaa mid kamid ah taageerayaashiisa magaalada Kismaayo waxay u doorteen madaxweynaha Jubbaland hase yeeshee Cabdinaasir Sayraar uu si lama filaan ay ku tagay Nairobi kulanna kula kulmay Axmed Madoobe halka Cabdirashiid Xidig aan weli war waxa dhankiisa ka soo bixin madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa kadib doorashadiisa sheegay inuu diyaar u yahay inuu xaliyo cid kasta oo wax ka tabanaysa waxaana maalmaha magaalada Nairobi ee dalka Kenya uu kulamo kula qaadanayay mas'uuliyiin iyo madax ka tirsan beesha caalamka Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo diiday dib u doorashadiisa ayaa weli u dhaxeeya khilaafka ka dhashay doorashada taas oo weli xal laga gaarin Axmed Madoobe ayaa Nairobi ka wada kulamo oo la qaadanayo siyaasiyiin Soomaali ah iyo xubno ka tirsan beesha caalamka wuxuuna waqti badan ku bixinayaa sidii uu xal ugu heli lahaa khilaafka ka dhashay doorashadii dib loogu doortay ee ka dhacday magaalada Kismaayo isla arimaha kulamada Nairobi ka socda ayayna ku guda jirnay khilaafka iyo wada shaqeyn la'aanta u dhaxaysa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Jubbaland ee Soomaaliya ayaa galay marxalad cusub kadib markii ay soo jiidatay dareenka golaha ammaanka ee qaramada midoobay golaha ammaanka markii uu warbixin ka dhageystay ergeyga qaramada midoobay mudane James Iswan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Marwa Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yare iyo Danjire Abubakar Daahir Cusmaan Baale ayuu ugu baaqay dowladda Soomaaliya iyo dhammaan maamul goboleedyada dalka ka jira inay dib u bilaabaan wada hadaladoodii si ay u xaliyaan khilaafka u dhaxeeya mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo xukuumadda dhexe ka soo gobolada Jubbooyinka waxa uu noqday goob ay si gaar ah ugu hardamaan dalalka Itoobiya iyo Kenya labada dal oo deris la ah Soomaaliya dhul iyo dad Soomaali ahna ay qayb ka yihiin dalalkooda isla markaana ciidamadooda qayb ay ka yihiin Amisom ayaa loolan ka dhex bilowday si la mid ah waliba gooni ahaan u ilaashada danihiisa siyaasadeed dhaqaale iyo mid amni dowladda Itoobiya waxay ku dhaleeshay Kenya inay ku abuurayso gudaha maamul goboleedyada Jubbaland ee Soomaaliya xooga ka dhana qarannimada Itoobiya isla markaana halis ku ah xasiloonida Soomaaliya iyo tan gobolka guud ahaan halka Kenya ay ku eedeysay dalka Itoobiya inay gacan siinayso xukuumadda Soomaaliya si ay meesha uga saarto mudane Axmed Madoobe oo gacan saar leh dowladda Kenya haddaba maxaa jira eedaha ay isdhaafsanayaan labada dal ee dariska la ah Soomaaliya maxaase ka runa dooda mucaaradka Soomaaliya ee dhahaysa xukuumadda Soomaaliya waxay ciidamada Itoobiya u adeegsanaysaa caburinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada waxaa la ogyahay in Soomaaliya u taagan tahay cadowgeeda maadaama cudud ciidan dhaqaale iyo waliba hay'ad dowladeed dhameystiran haddana midaysan intaba aysan lahayn waxay xukuumadda Soomaaliya la soo baxday taba siyaasadeed oo dalka looga badbaadin karo jabka ay la maagan yihiin xoogagga shisheeye ay horkacayaan siyaasiyiinta Soomaaliya taasoo ka dhigan majo dhooqo midba mar baa la bixiyaa xukuumadda Soomaaliya oo u aragtay fursad isbedelka ku dhacay hoggaanka Itoobiya waxay isbahaysi la sameysatay Itoobiya iyo Eritrea heshiiska ay galeen saddexdan dal wuxuu saameynayaa dhaqaalaha siyaasadda iyo nabadgelyada
bilowgiiba waxaa heshiiskan si isku mid ah u dareensaday dowladda Kenya oo u aragtay in Soomaaliya ay ka baxday siriqdii ay ugu jirtay Kenya iyo Ethiopia oo isku dhinaca dan ahaa, iyagoo heshiis ku ah in Soomaaliya aysan helin dowlad midaysan oo shaqeynaysa iyo madaxda maamul goboleedyada oo qaarkood taageero siyaasadeed iyo hub ay ku wiiqaan dowladda dhexana ka heli jiray dowladda Ethiopia. Waxaa xusid mudan in waajibaadka AMISOM ay ka mid tahay dagaalanka Al-Shabaab iyo inay dowladda dhexe ka caawiyaan sugidda amniga, tababarka ciidanka qaran iyo ka hortagidda wixii keeni kara qalqal amni. Dowladda Soomaaliya oo ka faa'iideysanaya heshiiska ay la gashay Ethiopia iyo Eritrea waxa uu suurtageliyay laba arrimood. Kow, in Ethiopia ay joojiso gacan saarka ay la lahayd maamul goboleedyada, taasoo xukuumadda u ogolaatay in barnaamijkeedii ay ku tayeyso hay-adaha dowladda u gacan banaanaato iyo weliba inay dhisto ciidan tayeysan tiro kooban kuwaas oo leh muuqaal qaran. Welwelka mucaaradka ee la xiriira adeegsiga ciidamada Ethiopia ee dowladda federaalka wuxuu ku saleysan yahay dhacdadii xiritaankii Robow iyo faragelinta dowladda federaalka ay ku sameysay doorashadii Koonfur Galbeed, halkaas oo ay ka dhisay talis goboleed hayin u ah balse ka hor imaanaya rabitaanka dadweynaha Koonfur Galbeed. Haddaba waa muhiim in mucaaradka ogaal u yeeshaan hadalkooda iyo ficilkooda si aysan danahooda gaarka ay u dhaawacin danaha qaranka, iyagoo qasdigooda uu yahay qudha xukuumadda mucaaradka. Arrinka quseeya khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo gobolada waxaa habboon mucaaradka haddaysan ka odayn karin khilaafka inay ka aamusaan ama dhexdhexaad ka noqdaan oo aysan dabka basiin kusii shubin. Dhanka kale, Kenya oo u aragta halis isbahaysiga ay sameyseen Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ayaa waxay isku dayeysaa inay fariisito u hesho mucaaradka Ethiopia ee saldhigooda u ahaan jiray dalka Eritrea, kuwaas oo saldhigyadooda la baabi'iyay horaantii sanadkan kadib markii ay heshiiyeen Ethiopia iyo Eritrea. Mudane Cabdiraxmaan Mahdi Maade oo loo doortay hogaanka ONLF November 11 ayaa soo gaaray maalintii Axadda ahayd ee November 24 garoonka diyaaradaha caalamiga Jomo Kenyatta, waxaana si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Nairobi oo mas'uuliyiin Kenyan ay halkaasi ku soo dhaweeyeen. Walaaca Ethiopia ayaa ah in Axmed Madoobe oo mar xiriirkiisa uu muhiim amniga Ethiopia inuu mar qudha u gudbay dhanka Kenya sida uu qoray wargeyska Addis Standard. Dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa waxay bilowday inay hoteelada magaalada Muqdisho ku ururiso xubno ay damacsan tahay inay ku biiriso baarlamaanka cusub ee Galmudug. Xubnahan oo isugu jira siyaasiyiin, shaqaalaha dowladda, qurbo joog iyo dhalinyaro dalka wax ku baratay ayaa waxay dowladda dejinaysaa qaar ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho ee inta badan la dejiyo martida dowladda. Ujeedada dowladda ayaa waxay tahay in ugu yaraan 2 meelood oo meel ay ku hayso xildhibaanada baarlamaanka cusub ee loo wada in loo yagleelo bulshada gobolada Galgaduud iyo Mudug. Ila wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in xubnaha ay dowladda shuruud uga dhigtay inay kasbadaan taageerada odayaasha dhaqanka ee beelahooda, wixii dhaqaalahan ay dowladda ku taageeri doonto si ay uga mid noqdaan baarlamaanka xiga ee Galmudug. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya ayaa waxay dardar ku wadaa dhismaha Galmudugta cusub, iyadoo guddiga doorashooyinka ay Khamiistii ku dhawaaqeen in maalintii Sabtida ay soo xareyn doonaan odayaashii soo dhisay Galmudugtii hore si loo bilaabo soo xulista xildhibaanada ka midka noqonaya baarlamaanka soo socda. Siyaasiyiinta xisbiyada ku-meel gaarka ee dalka ka jira ayaa la filayaa inay dagaal u geli doonaan sidii baarlamaanka Galmudug ay ugu yeeli lahaayeen xubno iyagu taageersan. Saraakiil ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda Soomaaliya ay muruq iyo maalba isugu geyn doonto sidii ay xubno la taaban karo ugu yeelan lahayd baarlamaanka laga hirgeliyo gobolada dhexe. Doorashada madaxtinimada ee sanadkii hore ka dhacday magaalada Baydhabo ayaa dowladda lagu dhaliilay inay dhaqaale xoogan ku bixisay si ay ugu soo saarto madaxweynaha haatan jooga Koonfur Galbeed ee Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. Warbixin toddobaad ka hor loo gudbiyay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaana lagu eedeeyay in dowladda ay xildhibaanka siisay $30,000 si uu codku u siiyo Laftagareen. Ugu dambeyntiina, beelaha qaar ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa laga reebay inay xubno ku yeeshaan baarlamaanka Koonfur Galbeed. Beelaha qaar ee dega gobolada Shabeellaha Hoose ayaa waxaa la qorsheynayaa inaan xubno laga siin baarlamaanka labaad ee loo dhisi doono maamulka Koonfur Galbeed. Odayaasha dhaqanka ee Koonfur Galbeed oo Arbacadii la kulmay magaalada Baydhabo ayaa waxay isku raaceen in tirada baarlamaanka cusub laga dhigo 95 xubnood, halka midka uu waqtigiisa dhamaaday tiradooda ahayd 149 xubnood.
dastuurka koonfur galbeed ayaa waxa uu dhigayaa in tirada baarlamaanka ay tahay 95 xubnood balse waxaa tirada baarlamaanka la kordhiyay xilligii uu xafiiska joogay madaxweynihii hore koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan kadib markii beelaha qaar ay ku ashtakoodeen inaanay wax xubno ahi ku lahayn baarlamaanka go-aankii ay Arbacadii soo saareen odayaasha dhaqanka ayaa waxaa ku cad in beelihii dib loogu daray baarlamaankii hore aan wax xubno ahi laga siin baarlamaanka cusub inkastoo aan arrintaasi saxaafadda lala wadaagin odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed ayaa waxay ku doodayaan in beelahaasi aanay deegaan sax ay ku ahayn gobolada Shabeellaha Hoose sidaasi daraadeedna aan loo baahanayn inay xubno ku yeeshaan baarlamaanka xiga guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen janalka wanaga inta fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir oo subscribe saar sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararkaynu halkani soo gelino waana mahadsantiin